fruutyada khasabka ah inaad cuntid markaad leedahay uur. Canabka waxaa ku jirta diiwaan badan oo nafaqooyin ah kuwaas oo jirku u baahan yahay dhammaantood, sida sonkorta noocyada fructose iyo glucose, nafaqooyinka iyo maaddooyinka kale, oxalic acid, silicic acid, gallic acid, folbafin, magnesium, pectin, folic acid, iron, calcium, iyo fitamiinada A, C, P, B1, B2, B6, B12 iyo K. Tufaaxu wuxuu qani ku yahay maadada zinc iyo fitamiinada A, E, D, wuxuuna aad hoos ugu dhigaa inay ku saameyso neef iyo xanuunka kale ee la dhaho eczema oo ah maqaarka jirka oo ku raabuqa, is-xoqxoq badanna kuu keena, kuna sii faafa maqaarka intiisa kale sida kaga muuqata sawirka. Wuxuu kaloo tufaaxu la dagaalamaa xanuunada kale ee kusoo wajaha asagoo awood xad dhaaf ah siiya difaaca jirka. Qaruhu wuxuu qani ku yahay maaddooyinka potassium iyo magnesium iyo fitamiinada A, C iyo B6. Cunista ama cabista qaraha wuxuu kaa jebinayaa qandhada, lalabada iyo madax wareerka wallaca. Isticmaalkiisa ee 3 bilood ee ugu dambeysa uurka waxay kaa jebinaysaa holaca laabta, muruq giijiska iyo bararka gacmaha. Afakaadhadu waxay caafimaad dahab ah u tahay dhallaanka ku jira uurka, waxayna korisaa caqliga dhallaanka ku jira uurka, waxayna kaloo fududeysaa saameynta uu wallacu u keeno caafimaadkaaga. Waxaana kaloo dhex qooshan afakaadhada in badan oo fitamiino ah oo uu jirkaagu u haraad qabo. Moosku wuxuu ku jiraa fruutyada la cuno markaad leedahay uurka kuwa ugu habboon. Waxaa ku jirta walaxda folate oo asal ahaan ah fitamiin B, taasoo ka ilaalisa dhallaanka ku jira uurka cudurrada ay ilmuhu ka soo qaadaan gudaha uurka hooyada. Waxayna sidoo kale ka ilaalisaa hooyada matagga iyo lalabada. Strawberry-ga, potassium, manganese, fitamiin C iyo aashitada folic ee dhex qooshan strawberry-ga waxay siinaysaa dhallaanka ku jira uurka lafo weyn oo adag, dhuuxuna ku badan yahay.